hooyadu si degdeg ah bay kor ugu boodday si ay ula dagaalanto jinniga kalluunka intii uu si waali ah biyaha isugu garaacayay ma uusan ogaan in jinniga kalluunka uu si kedis ah gadaashiisa uga soo baxay isla markiiba hooyadu way qotantay hal tallaabona ma qaadin si tartiib ah ayuu jinniga kalluunka uga soo istaagay biyaha iyadoo hooyadu isku dayaysay inay gabadheeda ka doonayso jinniga kalluunka jinniga kalluunka ayaa hal qaniinyo ku qabsaday wuxuuna ku jiiday webiga kadibna jinniga kalluunka ayaa dabadiisa ku dhuftay buundadii qoryaha ahayd wuuna kala burburiyey ilmo yar ayaa ka siibtay buundadii burburtay wuxuuna ku dhacay webiga isla markiiba iyadoo ilmaha uu ku sii simbiriirixanaya dhanka jinnigii kalluunka jack si degdeg ah ayuu ugu boday buundadii labaada si uu ilmaha u qabto laakiin jinniga kalluunka ayaa dabadiisa ku cadaadiyey buundada dabadeedna ilmaha mar kale ayuu dib u qaatay jack oo arkay xaaladda ayaa si degdeg ah hoos ugu jiiday taoiska culayskooda awgiis ayuu ilmuhu isla markiiba u helay jihadii saxda ahayd laakiin jinniga kalluunka ayaa mar kale dabadiisa luulay wuxuuna cunugiisi toos ah ugu tuuray webiga jack oo si degdeg ah uga falceliyey ayaa ka faa'iidaystay buundadii wareegaysay wuxuuna ilmihii ka badbaadiyey afka jinniga kalluunka isla markiiba uu mar kale xeebta u fuulay jinniga kalluunka ayaa haddana biyaha ka soo booday dadkii tuulada ayaa si degdeg ah u gooyay xadhiggii kalluunkan weyn